wasiir dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha Somaliland agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha hanti dhowraha guud ee qaranka Somaliland iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Togdheer ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo loo qabtay ururka la dagaalanka qabyaaladda ee loo soo gaabiyo ATO oo ka dhisan degmada Qurlugud oo ka tirsan gobolka Buuhoodle kaasi oo cuudiisa taageero ku biiriyay xisbiga talada dalka iyo kulmiye iyo murashaxiinta xisbigaasi munaasabadan oo lagu qabtay hoolka shirarka ee aqalka martida ee degmada Qurlugud ayaa waxa ka soo qayb galay wasiir dowlaha xanaanada xoolaha Somaliland agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha hanti dhowrka qaranka Somaliland gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Togdheer iyo mas'uuliyiinta degmada Qurlugud ugu horreyn waxa munaasabadaasi ka hadlay mas'uuliyiinta ururka la dagaalanka qabyaaladda ee ATO oo sheegay inay cuudooda taageero muujinayaan xisbiga talada dalka iyo kulmiye iyo murashaxiinta xisbigaasi aanay la'aantood maanta heerka ay soo gaareen waxa weeye waa xisbiga kulmiye oo uu hormuudka u yahay degmada Qurlugud horta heer qaran laakiin degmadana marka laga hadlayo oo hormuud u yahay aadan maxamed yuusuf sidoo kale gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer isaguna hiil iyo hoobuna laga taagnaa heerka waxa soo gaarsiiyay xisbiga kulmiye waxa soo gaarsiiyay xisbiga kulmiye maalintii ururkaan aasaasnay jingada ka san ku jirnay ninkii naga saaray wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer Xasan Mataan waxa kale imika halkaan soo gaarsiiyay ee nawada ee waxaan uga baahanaba nasiya waa gudoomiyaha degmada Qurlugud ee xisbiga kulmiye aadan maxamed yuusuf kulmiye horta wuxuu noqday ururkan ATO bal ugu weyn oo xisbi xaakimku uu ku soo talagalo markuu degmada xataa imanayo dabaarasha uu ku duula kamida ugu dambeyntii anigu hadalka badin maayo waxaan ku soo koobayaa hadaan lay ururka ATO if iyo aakhiraba anagu kulmiyana axiye mas'uuliyiin marti sharafta noo timi marka hore salaa wacan marka xigta waxaan nahay ururka midoobay caalamka dhamaantii ku igsaday aqoon wacan magaciisa caanka maskaxiya aqoon iyo miisaanka lagu qoraysnaa ATO weeyaan gudoomiyaha degmada Qurlugud iyo mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye degmadaasi oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa ururka ATO uga mahadnaqay taageerada mugga iyo miisaanka la isla garab taageen xisbiga talada dalka iyo kulmiye waftiga ballaaran waxaan leeyahay waad noo soo socdaasheen waad noo soo dhibaatooteen waad noo soo hawshooteen waad xafladayadana ka soo qayb gasheen iyo waxqabadka kale ee aad noo wadeen ama wanaajinta kale aad noo wadeenba aad iyo aad baan isku soo dhaweynaa hambaliyo muddada aad jirteen waxaad soo qabateen iyo wada shaqayntii fiicneed aynu soo wada qabanay imankana waxaan idiin ballan qaadayaa haddii ilaahay ka dhigo anigoo afkii xisbigii degmada ku hadlaya iyo kii heer qaranba inaan ururkii ATO wax kastoo ay degmada u qabanayso iyo baahi kastoo ururku leeyahayba insha allahu tacaala sidaan horeba u taageeri jirnay inaan imankana hiil iyo hooba la barbar taagnay anaguna waxaan dhalinyarada ku baraarujinayaa haddaanu hooyadii nahay oo hooyooyinkiinni aanu nahay waxaanu idinku baraarujinaynaa inaa aad iyo aad kor ugu baxdaan inaa kor u baxdaan inaa gamcays haysataan inaa taageeradiina ismuujisaan iyo taageerada xusbiga iyo ta madaxda maalin walba idiin imanaysa inay dhalinyaradu wax qabato oo qabyaaladda tirtirto oo shaqayso ayaanu jecelahay annagu waxaan idiin sheegayaa ururka ATO ururada ugu cadcad degmada wasiir dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha Somaliland Cabdirashiid Maxamuud Cali Riyaraac hanti dhowraha guud ee qaranka Somaliland Siciid Salebaan Mire agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Togdheer Xasan Mataan oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa ka marxaati kacay sida ay bulshada ka soo jeeda deegaanka Qurlugud ay u taageersan yihiin xisbiga talada dalka iyo kulmiye iyo siyaasadda xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxa runtii ay tahay waxa muujiseen karti iyo midnimo iyo wadajir iyo ina waqtiga adag u soo adkaysataan urur marka waxaa noqoteen midnimaduna waa wax meel kasta lagu gaaro qof haddaynu sunaamo fardi waxoo qabto waxma qaban karo laakiin haddaynu urur ahaan ama bulsho ahaan ama deegaan ahaan la isku tiirsado le waxa la qabto wax la qabanaya wax badan oo wanaagsan aan idinku hambaliyeynayaa ururkan dhallinyarada ee magaca la yidhaahdo ATO oo qiimo weyn ku fadhiya saddex kelmadood marka la soo gaabiyo ATO macnaha ay xambaarsan yihiin aad u weyn yahay
waxaan aad idinku hambalyaynayaa jiritaankiinna laakiin kan maanta waxaan ku doortay dhallinyaradan magaaladii Qurlugud ee u kacday la dagaalanka qabyaaladda oo aafo badan runtii ku haysa deegaamadeen waa baalashii xisbiga kulmiye waa kuwa la rabo in ay deegaamadan iyo degmadan Qurlugud eeriyadeeda isku wada dubaridaan taageerayaasha xisbiga kulmiye Khaliil Barrawran TV-ga qaranka Somaliland magaalada Burco